shirka dibirsiinta beelo ku dagaalamayay deegaanada hoostaga degmooyinka cadalo iyo raagaceli ayaa la soo gabagabeeyay wariyana maxamed salaad ayaa mar kale idin faahfaahinaya maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta beelo ku dagaalamay deegaanada hoostaga degmooyinka cadalo iyo raagaceli qofkii wax dila naftiisa u go'an walakum fil qisqaas hayatu wa ulil albab ya ilahi balama beela walaalaah oo isla degan oo jiiraanka waxa dhac gal shaydaan waay shaydaankana rag iyo Allah u baxsho waana baxay waxa lagu balama wala in sheegay ninkii nin dilo qoortiisa waay ninkii waxa dhaca mooridiisa waay saasa lagu balamay tolkan ama qaraa ama qasho nabadoonka aan aabe oo la shaqeeyay waan adeerkay waxaan ku balanaa tolka inaan gacmaas la qabsado harna nabadaas in la adkeeyo nabadaas in lagu dadaalo nolosha bini'aadamka nabada ugu horeysa caafimaad kama shaqeey kartid socod kama shaqeey kartid ganacsi kama shaqeey kartid wax kasto bini'aadam qof islaam ka shaqeey kama shaqeey kartid marka sida loo ballan qaaday oo hadii ilaahay gudoomiyaha gobolka ugu horeeyo iyo gudoomiyaha degmooyinka xildhibaanka iyo nabadoonnada dhammaan hadii ilaahay odayaasha abgaalo oda keenadka aniga bahda ma joogta nabada la ballan qaaday waxa ay ka codsanay in la adkeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Makaraan oo madasha heshiisiinta beelaha walaalaha ah goobjoog ka ahaa ayaa kula dardaarmay odayaasha labada beelood inay ka shaqeeyaan nabadda beelaha walaalaha ah maalmo yar oo kooban ayaa farxadiinu dhuntay intii ka horeed waxaad eedeen dad diris wanaag ku joogo dad abti iyo aysina dad adeer iyo maalk wiilkiisa dad qaraabo hoos la dhasho diriska oo dabkiis ka doonta eedeen fidnada idin soo dhax gashay meeshan godaa lay qodaa malayn fidnada lagu duugo oo malaha fidnada ninkii ka soo baxshay inay asiibto waa ku duceysateen oo malaha waa lagu duceysay ma ku duceysateen waa ku duceysay waajibay la maxogle waajibay waxaa la rabaa dadka in nabadda laga shaqeeyo nabadda ayaa adduunka qiimo leh adduunyadu maarto amni darra adduunka wax ka xun ma jirto qofku haddii uusan amni haysan noloshiisa ma shaqeeyayso